maamulka gobolka Saraarkan degmada Caynabo madaxda laamaha dawladda ee gobolka ayaa maanta munaasabad soo dhaweyn u qabtay mas'uuliyiinta wasaaradda caafimaadka u soo magacowday gobolka Saraar gudoomiyaha golaha deegaanka ahna duqa degmada Caynabo Faysal Ahmed Jaamac Faysal Sanwini ayaa isagu ugu horreynba sheegay inay soo dhaweynayaan maamulkan cusub ee loo soo magacaabay wasaaradda caafimaadka ee gobolka wasaaradda caafimaadkana u gudbiyay inay waxba kama jiraan tahay dawooyin dhacay oo la keenay isbitaalka guud ee Caynabo hore waxay gobolada iyo wasaaradda caafimaadku waxay maalin kormeerkii lagu soo maray dawo dhacday baa la sheegay annagu dawo dhacday ma na sheegin waxa u harsan yaa sheegay dawadii oo fara badan waxa u harsan mid deyntaasi aan u harsanayn yaan doonayn maxamed daahir bare mas'uulka wasaaradda caafimaadka u soo magacowday gobolka ayaa ka dhawaajiyay inay kor uga qaadayaan heerka uu maanta marayo caafimaadka gobolka ujeedada halkan loo soo magacaabay taani yarku waxa weeye maamul waxa loo soo magacaabay waxa weeye inay halka wasaaradda caafimaadka hawlaheedii in halka gobolka laga qabto oo degmada laga qabto deegaanka dhan laga qabto gudoomiyaha gobolka Saraar Ahmed Cali Nuur xogayaha dawladda hoose Umar Maxamuud Muuse gudoomiyaha horumarinta ee gobolka Saraar Salebaan Cabdi Dirir Xildhibaan Maxamed Eebyan Caaqil Maxamed Daroor ayaa dhamaantood isaga dawmaray inay soo dhaweynayaan maamulkan cusub ee wasaaradda caafimaadka u soo magacowday gobolka Saraar caafimaadkana waan ognahay dhibaatada maanta Caynabo ka jirta iyo gobolka ka jirta in wax la soo koobi karo runtii maaha rag way arag waatiin ruuxantii markaan suuraysanay laakiin haddana dhibaatada inta waa ka balaarantay baxay meediyaha galay inaanay waxa weeye dawadu haday laba bilood joogtay haday 3 bilood joogtay haday 4 bilood joogto dawadu laba maalmood hore waa lagu leeyahay Maxamed Bashiir Nuur Greek Home Cable TV Caynabo